munaasabadani oo ka qabsoontay magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu caleema saarayay Caaqil Cabdiraxmaan Maxamed Ilaaye oo ka mid noqon doona madax dhaqameedka Somaliland kaasoo ay caleema saartay mid ka mid ah beelaha faca weyn ee Somaliland dega. munaasabadda caleema saarka oo ay ka soo qayb galeen cuqaal madax dhaqameed odayaal xildhibaanka beeshan ku matala golaha wakiilada iyo dadweyne kale ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Xuseen Ismaaciil Budul cuqaasha madax dhaqameedka aqoon-yahanka haweenka iyo dhalinyarada beesha caleema saartay caaqilka cusub iyo martidii kale ee munaasabadda ka soo qayb galay waxaanay hambalyo iyo duco u soo jeediyeen caaqil Cabdiraxmaan Maxamed Ilaaye. Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Ilaaye oo ay soo magacaabeen soona xuleen markii ay odayaasha reer Boqor in badan u fadhiyeen ay rogrogeen ay ka baaraan degeen waxgarad iyo waayeelba waxay isla garteen inuu ka mid noqdo cuqaasha beesha Baha Ismaaciil inuu ka mid noqdo gaar ahaan reer Boqor beesha reer Boqor caaqil Cabdiraxmaan Maxamed Ilaaye warsame Cabdiraxmaan aad baan aqoon u leeyahay 20 sanadood baan wada joognay meesha uu yiraahdo Abu Dhabi waana qaana waa nin sheekha oo Ilaahay yaqaan oo maskaxdu u nabad qabto oo calooshu u nabad qabto oo diintu u nabad qabto يا بان دينها بليين يا إلهي حلك أبواس درو ودعينينا نقال دورتي بالله ما أنا وأقوم بدل سملهن لكن وحلو شيء يقول هاي يا وحنو دعينا وحولنا الله تواس ما تبغى بالي في عن وحين هركب السجون مدينة على مسارنا عاقل كم ضغوط ولا عواش باي إسماعيل والكسول وين ينو كعم فرن وحولنا إلهي حلك أبواس درو إلهي كله وكي وبدأ سيف عنه هجية باي إسماعيل ما وأدعي إلى سجنا ده أبسي يالسي وعمل يقول أدعي يا عاقلك عصمنا هدانا لا شقين ما شقينا يو عينو لا شقينو ده إنكم مركو قدر يلاها كتشو يلاها يا وسوقيا ده كده عايدين أنت أنا دردار ما بحنا يا أنا كرة دردارنا الدنيا ده واسكاش يبدنو يسقف دمتيسه هي دمت كويس كيس سكينو كم هاري يلا وكم أولى كده دمت من نبضة يدمت ولا شركة يسكن حركة باي إسماعيل يلا شقيت عقاشة كله يا احترام كعامل كي كزور يجيب عامل إلهي وحنقوم هذا لقينا مرة دير يا رب كرر يدو مرة بس كسور راعي عبد الرحمن إلهي باي إسماعيل أول لقب runtii degmada Maxamed Nuuge iyo Maxamed Haybaba waa runtii nin aad looga majirto la yaqaano marka wax qabadkiisa runtii waa la arki doonaa waana nin sheekha waa nin ahlu cibaada xilku ruux wanaagsan marka lagu soo doontay ma aha inaad wax weeye maxay ay garabka saarto maamad lagu soo jujuubo runtii marka in maxay ay lagu soo karaameeyay odayga arjaniya hadii bidin kusay aniga iyo madax dhaqameedka beeshuba inaan iskaashin doono haweenku caaqil Cabdiraxmaan doorashada aan galay haweenku dhabar bay haayeen aad iyo aad bay haweenkeena iyo hableena looga wahayn doona hadii ilaaha ka dhigo haday tahay xagga dhaqanka iyo haday tahay muxuu ahay xagga siyaasadaba in la siiyo kaalintooda inay ka qaataan hadii ilaaha ka dhigo dhismaha bulshada وصل وين عقلك dhamaystirka structure-ka guud ee dhaqankeeno muxuu ahay dhamaadina waa kuma hadnaqaynaa ilaahay haddii ruqaashu badatayna inay Baha Ismaaciil sii buurato mooyaan ma kala tegayso ardaagu waa ardaagiisii wixii ka dhaxeeyay way ka dhaxeeyeen caleenta ugu horeysa anaa saariya caaqil Cabdiraxmaan ugu dambeyntii munaasabadda waxaa lagu caano shubay laguna caleema saaray caaqil Cabdiraxmaan Maxamed Ilaaye isagoona halkaasi ka hadlay kuwa amaano anigu waan ku fudxaya oran maayo waayo waxaan leeyahay xilku waa wax Ilaahay tabaaraka wa tacaala laga magan galo inuu kugu badbaadiyo ama anta ay farxad ama inta yaro amaano saaran waxa ugu markaa Ilaahay amaano ay fududeeyo inuu waa barakaysan Ilaahay ku barakeeyo وعيدروس بيرشيا تلفزيون كيونيفرسال هرقيسة